السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxa aan ku sheegayaa laba kalabadood. What should I eat on Eid day? Maalinta ciida ah maxaa aan cunaa? Nabigeena calayhi salaatu wassalaam sida laga soo wariyay uu yiri inta aadan salaada ciida inta aadan tagin oo aadan ka bixin gurigaaga waxa sunnada ay tahay in maaragtay qofka inuu afkiisa inuu geliyo dhowr xabo timira oo biyo uu qofkana maaragtay cabo kadib ayaa salaada atay kartaa. dad baa waxay sameeyaan ayagoona saas aan sameyn ay salaada iska tagaan kadibna waxay tagaan goobaha maqaayadaha cuntooyinka laga cuno. Cuntooyinka maalinta ciida ah cuni karto ciidan ciid al-adha ma aha, ciidii maaragtay geelka iyo ariga la qalay ma aha. bil dhan baa soo soomaneyd. dad baa waxay sameynayeen bishi dhan ay waxay cunayeen ba cuntooyinka culus ay cunayeen. haddana hadda ku darsato maalinta ciidana aad beer iyo canjeero iyo waxyaalaha maaragtay oo Soomaalida anaga caankan ku nahay hasuubin waxaa sameeysaa cuntooyin maaragtay khafiif ah qofku inuu mataqaanaa maalinta ciidana cuno waaye qofku inuu cabo biyo badan ilaa ay 3 bari soo jirkaaga ula qabsado. dadna wadac ay sii sameeyaan maaragtay sida xalwiyaadka khafiifka sida shokolaadada kaleeto sida mooska sida khudaarta waxyaalaha ku jirto kaleeto yogurtka kaleeto sida maaragtay canjeero waa cuni kartaa laakiin wax yar oo mataqaanaa hadda ku darto wax yariis oo macmacaan yar ku darto oo mataqaan jirkaaga dhibaato u keenay sida yogurt camal ku darto kaleeto korka ka saarta maxaan ku dhahaa tufaax yar iyo moos googooysa kor saarta camal ka cunto okay way. laakiin hadda dhahdo canjeero iyo beer iyo waxyaalaha maaragtay oo dufan kale aad hore ka cunayso ma wanaagsanan. marka mar walba isku daya inaad maaragtay ka taxadartaan caafimaadkiina. marka waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo ilaahay maartana gaarsiiyo sanadka xiga 2025 insha Allah. Salaamu calaykum sidaas iyo nabadgelyo.